mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray halka ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha iyo sidoo kale madaxda kale ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dhow soo gaaray xarunta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo si diiran loogu soo dhaweynayo xarunta ama hoolka ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida aan hore idinku sheegnay daawadayaal dhageystayaal waxaa horey u soo gaaray munaasabadda meesha ay ka dhacayso madax iyo wafuud caalami ah oo kala duwan oo ay ugu badan yihiin kuwa gobolka oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaal wadamada caalamka ayaa soo gaaray xarunta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida aad daawanaysaan waxaa hadda soo galay xarunta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana hadda ay soo gaaray xarunta ay ka dhacayso caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle oo ka mid ah madaxda lagu casuumay munaasabadda. Farmaajo ayaa hadda soo gaaray xarunta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. ciidanka baanbayda Soomaaliyeed ayaa si diiran u soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxa uu istaagay salaan ama meel loogu talagalay in uu salaan ku qaato waxaa dhinac taagan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa hadda si diiran loo soo dhaweeyay waxaana soo dhaweeyay oo halkaasi ku sugan ciidanka baanbayda Soomaaliyeed. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daawanaysaan hadda oo markaasi salaan ka qaadanaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa baanbayda. madaxweynaha ayaa rog cagaaran ama meel dheer aad u dheer saaran isagoo salaan qaadanaya ciidamada baanbayda Soomaaliyeed ayaa astaanta calanka u garaacaya halkaas oo ay ku sugan yihiin dad aad u qurux badan oo markaasi soo dhaweynaya maxay yeesho munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha ayaa u jeedaan hadda